aragtideeda waxay tahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday inuu raba inuu asaga sida uu raba laga yeelo dadkuna qaarkood weli dhiiga cadda kama dhamaan dhiigooduna fresh ah ku jiro ma rabaan inay kelmadaas qaataan ama ay yeelaan annagana waa la qabnaa waxa ku horgudban waxay tahay kaala imow aan ku taliye iyo iima talinay sida aan wada tashano ma ku aaminaya halkaas imow kaale aan wada tashano iyo ma wada tashano kaale aan ku taliye sheekada maraysa marka haddaan ku soo koobo wallaahi oo billah oo talaa unfi qabiil iyo nacayb qabiil iguma jiro muqdishoan ku dhashay ku koray alxamdulilah qof maanta qolo aan nacbahay ma jirto haddana mararka qaarkood markaan aniga dembi galo oo aan dad islaameed dembi ka galo waa inay adeeraday iyo awowayaashay ehelkay ay qaban karaan farmaajo dadkiisa xataa waa ku dhiiran la'yihiin war waxyaalaha qaarkood waa qalad inay ka hadlaan waad la socotaa cabdirashiid janan miyaa la yidhaha aad soo dhaweyn boqortooyo loo sameeyey abu mansuur robow 2 sano miyaa 3 sano isku xiran yahay waxyaalaha qaarkood aqligaaga logic fiir ninkii in la yiraahdo waa dambiile oo maxkamad la geeyo oo la xukumo waa baab inuusan dambiile ahayn oo la daayana waa baab labaad kan hadeer lagu eedeynaa inuu dad shacaba ku leeyagado ayaa soo dhaweynta aragtay iyo diyaaradaha aragtay iyo qarashka aragtay loo galay ma fahmaysaa aniga hadeertaan siyaasad ka sokow ganacsadaan ah canshuura laga qaadaa waa dhiibaa xoolahaygii ayaa diyaarada lagu rarooyaa ma aamusa ma seexana maanta jiifka aan seexdo ayaan berri ka shalaynaa waxaan ku talin lahaa aniga dadka reer muqdisho inta siyaasadda qaabka daran ee ku darsashada iyo dictatorship ka soo horjeedo maanta haddaysan kaceen wallahi berriya ka shalaynaya waxba yaan la dhihin midowga musharaxiinta yaan la dhihin odayaasha dhaqanka nin walbay u taallaa haddaan maanta laga dhidhin maalin waxaa la gaaraa dhegay faray ee ka dhacayso